السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويدلكين باخي ارتقيمها يقدرين تليه هودا نقل صعوتاي ومرك له برنامج كيني تطبع الله هاي الشرعي وبالشدة وتطبعات كان عن كهذا دونه موضوع لحد تنبيه مقالوين كدعاء يشروع ذاك الدوان لجوهر تجي يستمر كاسنا نوحة كمان يو وحنا مرتين نوجوه تطبعات كان أجاسينك وجست باريست حفيزك عدالة الدولديان كالصومالي ذا مدن محمد أربع محمد كسرو برنامج كنن وحن جعلنا لها إن كذا قالوا موضوع تطبعات كان وعن كذا هذا ندم بيد المجالين ككدعة نوعية ذيك كوبينهين قاب كلوجه هرتقى مشروعها كالدوان لا حريرة سيل لوجه هرتقى إسلام مركزنا الله حكم يو. بسم الله الرحمن الرحيم. marka hore aad iyo aad baad mahadsan tahay wariye maxamed cabdi garbo in aad igu marti qaado barnaamij muhiim ama ahmiyad weyn u leh bulshada haddii aan mowduuca barnaamijkeena u guda galo saad la socotaan kulley taniya intii koritaanka magaalooyinka uu bilaabmay guud ahaan dal ahaan iyo deegaan ahaanba ayada lafteedana waxaa garab socday inay bataan dambiyada ka dhaca magaalooyinka waayo markasto magaalo ay abuuranto isla markaana dad kala gedisan oo kala qoomiyada oo kala dhaqana oo kala diin ay isku yimaadaan iyadoo lafteeda waxa isdiidaya dabeecadaha kala duwan ee bini'aadanka marka waxa ka dhalanaya dambiyo dhibaato ku ah bulshada kuwaas oo u baahan iyaga laftooda in la xakameeyo haddii aanu hoos ugu sii dhaadhaco inta badan dambiyada ka dhaca magaalooyinka وإلا أفرد دنبي أي كليهين لا أفر نوع دنبي جو بيدن وكرايمس against property دنبي ذا كردان كأ هنتي ذا بالآن كأ هنتي ذا معناه جورت ذا أوليبه أما هالنقطة لأن يرد أنتيس أبا بشو شينا جروب كالله يقارن أنتي تذكر طريقة ذا ويستعان موبيل ذا حوك قاطع أما اللابتوب ذا أما وحى يستعان بعده أما هالنقطة تيجي ذا كله abaabulana habeenkii guryaha u daata inta badan saan ku hayno recordka booliska ee dhinaca dambiyada number 1 waxa ka magaalooyinka dambiyada ka dhaca dambiyada ka dhan ka hantida guurtada ah dambiga labaad ee isaguna imika inagu soo kordhay muddo laga joogo 12 sanadoodna deegaankeena ka bilaabmay bariyahan dambana aad muddo inuu ku sii badanaya waa isticmaalka maandooriyaha loo yaqaan xashiishada kaasi oo saameyn adag ku yeeshay dhalinyarada magaalooyinka deegaanka meelaha ugu waaweyn ay ku badan yihiin ay ka mid tahay caasimada deegaanka magaalada Jigjiga magaalada Doolacadow Mooyaale iyo magaalooyinka waaweyn ee deegaanka laakiin saddexdaasi ay ugu sii badan yihiin taasina waxay keentay inuu isbedelo hab dhaqankii bulshada iyo dhaqankoodii oo arimahaasi dhaqan bedel xun ku sameeyeen isla markaana ay ka dhalato inay sameeyaan dambiyo culus oo ay sabab sabaashaas oo dugtiin kulli qofku markuu daroogo isticmaalo waa umul khabaa'is oo iyada u horseedisa qofku inuu dambi ku dhaco isticmaalka daroogadu waxay keentay tuugada lafteeda qayb bay ka tahay oo inay dadku intay wadooyinka istaagaan dhalinyaradu ay moobilada ka dafaan ama hantidooda ay qaataan sabab bay ka tahay arinta labaad ay sabab ka tahay iyaduna waxa weeyaan inay sameeyaan kufsiga oo gabdhaha dhibaato u geystaan kufsi wadareed iyagoo guruuba حتى كوفسي كليون معها كوفسي أنت لو سمايه قبلها إسلام مركانا شركوده يمسك حدود بوحية لو معناها دبعتها على سامين بالشيء كسوق قردو تانا وح أوصبها استعمال كحشيشة أي أوصبها وحكلو أي صبابتها عرنتن مندوريها مع حشيشته إن دل sometimes أي ساميان دتكاس مركا حشيشة لعبوا أما تطلبوا بيها نقطة أما إيه قد حدود اللفتو ده بها نقطتين استيلان السن حريص ترى isku dilaan oo dililka sharcigu macnaha aadka uga hadlo oo target ka saareen xariistarada loo yaqaan lafteedu inay ka dhalatay iyagana ayaa marka suuragal ah si guud marka hadii aan u soo koobo dambiyada magaalooyinku waxay isugu jiraan afartan nooc isugu jiraan oo waa xatooyada caadiga burcadnimada حشيشة مندوريها استعمال كده كوفسية ديلك انت هاسي معناها يسوق جيران
oo inta badan dambiyada soo noqday magaalooyinka ka dhacay ay keentay isticmaalka daroogada iyo technology-ga laftiisu qayb uu ka qaataa macnaha maadaama dhalinyarada isticmaalayso waxaan internetka la yiraahdo social media waxyaabo badan oo khaldan intii ka arkaan ayaa laga yaabaa inay u isticmaalaan bulshada dhexdeeda isla markaana ay sidaan ku tijaabiye kulay waxa dhacday imika dhalinyaro China group loo yaqaan iyaga laftoodu intii sabaabulan ay dhexdooda istiraraan oo istiilaan dhibaato isku geystaan way saftoobaan arintaas oo macnaha sharciga lid ku ah dhaqan xun aynaan lahaan jirin bixitaa soo kordhiyeen wax laga yaabaa inay iyagoo isku kaajay oo inta mid la dilo isla markaana lagu kaajiyo inta laga duubo video isla markaana baraha bulshada la dhigo arintaas oo dhaqankeena iyo diinteena lid ku ah oo wax cusub oo daroogadaas ay sabab u tahay iyada lafteeda taana way sameeyaan dhibaato laftooda ay isku hayaan oo kooxana way jirtaa dambiyadani marka ma jiraan xiriir ay leeyihiin oo markaas iyada ah saameeya in faldambiyada magaalooyinku ay dhacaan xiriirka saameynaya waxa weeyaan horta kow waa drugska waxa la yiraahdo xashiishada maandooriyaha xashiishka loo yaqaano ayaa sabab u ah inay dhacaan dambiyada noocan way qofku markuu daroogo isticmaalo waxay keenaysaa dhiiranaan fara badan inuu ku dhiirado waxyaabo badan oo dambiya ama uu dadka waxyeelo bulshada yeelay ay si dhib yar ugu fududaysaa marka taas ka ka talabaad inuu kufsi sameeyo lafteeda iyada ayaa qayb ka inuu dil sameeyo iyada lafteeda ayaa qayb ka qodobka labaad ee soo raacana waxa weeyeen waxyaabaha social media ay ka arkayaan ee dhaqankeena saameyn ku yeeshay odagtay kulay dhaqanka Soomaalidu dhaqan bay lahayd asturan oo kala dambeyn leh oo xishood iyo istixgelin leh intii nidaamkan casriga social media uu yimid waxa laga yaabaa inuu gaab ku yimid halka oo dhibaato ka timid dhaqan doorsan fara badan uu jiro daayirta dambe imika aanay ogeyn ba dhaqankeeni soo banaa iyo waxyaabahaas ay la haysan isla markaa kuwa social media oo waxay xiiseeyaan oo ka raacay tahay marka arinta ugu muhiimsan ee dambiyadan sida fudud u sahashaa waxa weeyaan baasha la yiraahdo daroogada especially xashiishada weeyaan dhibaateynta lag bay ku haysaa ama uu ka hooyaan dambiyadan kala duwan ee ka dhacaya magaalooyinka bulshada dhexdeeda dhibaato fara badan bay ku hayaan xaqiiqatan badqabkii iyo nabad ku wada noolaanshihii bulshada dhibaato ku hayaan waxa laga yaabaa tusaalahan qofku si nabadgelyo isagoo inuu rabo inuu suuq uga soo adeegto xilliyada habeenkii ama gabdhihii macnaha doonayeen adeeg u doontaan tusaalahan dukaamada suuqyada dhibaato fara badan bay ku hayaan oo naftoodii in dhibaato loo geysto qofka kale dadka imanaya magaalada ee ku cusub ee ka adeeganaya magaalooyinka ayaga laftooda dhibaato ay ku haysaa way hantidoodii iyo moobiladoodii iyo waxa inay waayaan taasoo sawir khaldan ka bixinaysa nidaamka nabad ku wada noolaanshaha magaalooyinka marka dhibaato adag bay ku hayaan dambiyada noocan iyo xil ka saaran yahay matalan in laga hortago ama la xakameeyo faldambiyada magaalooyinka ka dhaca ee aad sheegtay xiliyadan dambe ku soo batay magaalooyinka deegaanka Soomaalida bismillaahir rahmaanir rahiim waa su'aal wanaagsan wariye wuxuu xil ka saaran yahay kow waa dawladdu xil ka saaran yahay waxa kale oo xil ka saaran yahay bulshada lafteeda waalidiinta lafteeda waxa ka saaran xil weyn inay ogaadaan waxa ay ku sugan yihiin caruurtooda oo dabagal ku sameeyaan ma yihiin kuwa ku sugan goobihii waxbarashada loogu talagalay inta badan dambiyadan dadka sameynaya waa da'da dhigata dugsiyada sare iyo jaamacadaha marka intee in leeg buu waalidku laftiisu dabagalaa ubadkiisa waxyaabahan dambiyadan inuu sameynayo iyo inuu xaaladiisa la socdo taa lafteedu qayb ay ka taho dhaliil dhinaca waalidka ka jira intan dambe waxa la yiraahdo tahriibku uu soo baxay waxaad muddo ka hor waalidka iyo ubadka waalidka awood badnaa la ixtiraami jiray laakiin intan dambe ubadka laftoodii ayaa waalidka hagaya taasina waxa sababay intii tahriibku uu soo baxay waxa laga yaabaa hadii waalidka ama ay canaantaan ama ay sirahan ilmihii dabagal in uu ugu hanjabo inuu macnaha tahriibayo taasoo uu ku beer la xawsanayo laakiin kaalintii waalidku ilaa imika dhaliil ba ka taagan inta badan waxa dabagala had iyo jeer la socda waa hooyaduna dekaligeed ma manage karta aabayaashu waxa laga yaabaa inta badan inay ka warhayn xaaladooda marka taalifteeda dhaliil ba ka jira marka la qabto ilmihii ee sharciga lagu soo dhaweeyay wuxuu ka oranayaa qof kasta markuu yimaado inankaygu masaajidku ku jiray waxaan ma ogeyn isagoo dambigii macnaha falaha kula jira marka waalidka laftoodu waxaan ku boorinayaa inay daayirtooda ka warhayaan halkay ku maqan yihiin waxa ay qabanayaan cidda labaad ee mas'uuliyadda ka saaran tahay waa dawladda institutionada dawladda
ee arrimahan ay khusayso sida security-ga sector-ka macnaha nabadgelyada iyo sector-ka cadaaladda labadaaba macnaha mas'uuliyad weyn baa ka saaran sector-ka nabadgelyada iyaga waxa looga baahan yahay inay ka hortag sameeyaan oo nidaamka dambi ka hortagga la xoojiyo wacyigelinta la xoojiyo arrimaha institution justice-ka laftooda iyaga waxa mas'uuliyad ka saaran tahay marka dadka la soo qabto in sharciga la mariyo isla markaana dhibaatada ay geysteen lagu abaal mariyo si kuwa dambe tusaale ay ugu noqdaan oo iyadoo laga shaqeynayo badqabka bulshada iyo ilaalinta nabadgelyada iyo kala dambeynta وهاجا هذا يد محسن تهاي وهاجا خيار هالكاد ولينا جلس عطاني وبرنامج كني تطبع الله هاي شرعي برشة وتطبعات كان عن كذا هاللينو دنبيه ذكر ع مجالوين كا يحرك عقابته إثيوبيا سيدا وهاللي دنبيه ذا سكر الدوانة كدع مجالوين كا وحنا مرتين نواه محمد عربي وكم إذا شرعي قانا ذا حفيز كعدالة دولديان كالصومالي ذا محمد دنبيدن kala duwan ee aad sheegtay ka dhaca magaalooyinka sharciyada ka soo baxay si looga hortago loona xakameeyo maxay yihiin qaabkiisa shuruucdan iyada ah loo dhaqan galiyay waa su'aal wanaagsan dambiyadan ka dhaca magaalooyinka kulley waxa jira shuruuc laga soo saaray oo xakameynaysa isla markaana cidii ku xadgudubta ciqaab u dhiganta faldambiyeedka foosha xun uu sameeyay lagu abaal marinayo tusaale ahaan criminal code-ka Ethiopia ama xeerka dambiyada Ethiopia ee soo baxay 2004 qodobadiisa 670 iyo 671 iyo 665 waxay ka hadlayaan dambiyadan ka dhaca magaalooyinka sida dambiga koobaad ee aan sheegay ee ka dhanka ah hantida guurtada ah hadday noqoto moobiladan la dafayo iyo hadday noqoto tuugada kale ee guryaha u dhacaysa adaga gaangiska ama roberiska kooxaha abaabulan sharcigu wuxuu ka soo saaray tusaale ahaan qodobka 7 wuxuu leeyahay qof kasta oo hela macaash sharci darro ah ama hanti qof kale oo guurta ah u adeegsado xoog ama hanjabaad ama cabsi gelinaya ama qofka ka dhigaya si waxa aanu isku difaaci karin tusaalahan marka dhigaya macnaha waxa weyn aalad ugu hanjabaya hub haday tahay midi haday tahay si kala haday tahay ama inuu dili doono tusaalahan hadii waxa bixin waayo ugu hanjabaya waxa lagu ciqaabayaa buu leeyahay qodobkaasi xariga adagoon ka badnayn 5 sano ilaa 15 sano qodobkani marka waxa burcadnimada weyn ama dambiyadan dadka moobilada kuwa ka dafaha noqoto ama kuwa habeenkii intay dadka u dhacaan tuugada abaabulinay isku xidhan gaangiska iyagoo hubaysan ama midiisita ama waxyaabo badan sita guryaha intay galaan qofkana ka cabsi gelinaya ama dhibaato u geysanaya kuwaas waa burcadnimada weyn caadiga ah marka natiijada ciqaabtiisu waxay noqon doontaa ay ka bilaabmaysaa 5 sano ilaa 15 sano ayay ka bilaabmaysaa marka waxa weeyaan dambigan laftiisu xitaa waa dambiyada aan u ogolayn habka xeerka dambiyada Ethiopia in damaanad lagu sii daayo maadaama ay burcadnimo abaabulan tahay hadii kan waa shakhsiga weyn sameeya laakiin marka dambigu ay samayso koox abaabulan oo isku xiran oo ma garanaysaa arrimahan si ma garanaysaa abaabulan uga shaqeynaysa isla markaana bulshada dhaawacaya macnaha nabadgelyadeeda ama badqabka jireeda qofka dhaawacaya wuxuu geysanaya khatar gelinaya isaga lafteeda qodobka 671 wuxuu leeyahay burcadnimada culus waxa lagu ciqaabayaa xarig adag oo ka bilaama 5 sano ilaa 25 sano taamicneedu waxa weyn kiisku marka horta uu socdo waxa la eegayaa circumstance kiiska duruufaha kiiska ku xeeran baa la eegayaa lafteeda qofkani ma waxa weyn qof waxaan macnaha mar kasta ka shaqeeyo oo caadaystay ma qof duruufiyo baahi macnaha ay u geyso maanta ama la soo khalday mise waa qof ku dhiirano macnaha badqabka bulshada dhibaato ku ah marka taa lafteeda ama xeer ilaaliyaha noqoto ama booliska noqoto mar kasta duruufahaas waa la eegayaa hadduu record hore dambi lahaay qofkani caadaystay halka ugu dambayso xeerku noqonaya hadduu qof maanta ay ugu horeysa ay tahay oo si qaldan loo soo galiyo isla markaana ka qoomameynaya wixiina ciqaabta meel dhexe ay noqon doontaa kulli maxkamadda ayaa discretion power kale iyadana miisaanta laakiin eedaha lagu eedan karaa waa kuwan xeerkan dambiyadana waxa loogu talagalay kulli in dadka uu kala xakameeyo haddii aan sharci la soo saarin kuwa xumaan falayaasha ah lagu marinayo ama lagu ciqaabayo bulshadu waxay noqonaysaa isku siideys isla markaana waxa meesha ka baxaya nabadgelyadii iyo kala dambeyntii iyo xasiloonidii
badqabka bulshada ayaa meesha ka baxaya marka sababtaas ayaa qodobadan loo soo saaray marka xeer la soo saarayna kur kasta dhinacyo badan baa laga eegaa dambigani saameyn intee buu leeyahay bulshada khatar intee leeg buu ku hayaa maxaa ka dhalan doona waxaas oo dhan waa la eegaya kulli marka la soo saarayo marka saasay qodobada ka hadlaya arrimaha burcadnimada iyo tuuganimada culus ay sheegayaan tu kale iyaduna waxa jirta tuugada iska normaliga duruufi ay u geyso ciqaabteedu kulli kuwaas iyo kuwa burcadnimada abaabulinay gaangiska way kala yaraanayaan tuugadaas oo kale wuxuu oranayaa qodobku xarig fudud oo ama xarig adag oo aan ka badnayn ilaa 5 sano maxaa la eegayaa duruufaha qofkani ma baahi baa u geysay siduu sameeyay ma qof aan abaabulin oo ma garanaysaa tusaalahan maanta duruuf ay ku kaliftayba arrimahaas oo dhan kulli garsoorka ayaa miisaama markii xeer ilaalintu eeda horgeyso baaraha laftiisuna wuxuu ka duulayaa markuu kiiska soo diyaarinayaba rikoorka dambiyada hore booliska yaalay qofkani hadda ka hor muxuu ahaan jiray macaadeysta dambigan ma haddu ku cusubay waxaas oo dhan baa la eegaya dambiyada kale ayaguna magaalooyinka ka dhaca ee aad sheegtay kufsiga iyo ka mid ka yihiin baandooriyaha oo kale uu ka mid ka yahay iyagana sharcigan ciqaabtu ama xeerkan ciqaabta Itoobiya wuxuu qaab u dhigayaa kulli arrimaha kufsiga sidaan horeba soo sheegnay kufsiga waxaa sababa isticmaalka xashiishada inta badan sida lagu ogaaday daraasaadadii ugu dambeeyay ay sameeyeen ama booliska ha noqoto ama xafiiska cadaaladdu taasa sabab u ah way qofku markuu xashiishada isticmaalo wuxuu sameeyaa waxyaabo badan oo dhaqanka bulshada lidku ah marka inta badan waxa dhacday magaalooyinka inay ka dhacaan kufsi wadareed iyadoo dhibaato loo geysanayo gabdhaha kufsiga horta qodobka 620 ee xeerka dambiyada Itoobiya ayaa si adag u qeexay isla markaana faahfaahiyay kufsiga imika tusaale ahaan qodobkaas farqadiisa koobaad wuxuu leeyahay qof kasta oo qof dumar ah si xooga fal xooga ama hanjabaada ama macnaha miir la'aan ka dhigaya ma garanaysaa si kasta oo aysan isku difaaci karin qofka dumar si kasta oo sameynaya inay isku difaaci karin ama ha u isticmaalo daroogo ama macnaha xoog ama aalad midi ama wax la mid ah ama hanjabaad kale haweeney si qasab ah oo ka baxsan galmo aan ahayn tii guurka ee la ogolaa waxa lagu ciqaabi karaa xarig adag oo ka bilowda 5 sano ilaa 15 sano u leeyahay farqadiisa koobaad 5 sano ilaa 15 sano waa farqada koobaad farqada labaad iyaduna waxay oranaysaa marka lagu sameeyo fal naxariis darro ah ama rag tiradoodu ay ka badan tahay markay sameeyaan dambigan falka naxariis darrada ay sameeyaan rag tiradoodu ay ka badan tahay 2 xubnood ayna u geystaan qof dumara kufsi wadareed waxa lagu ciqaabayaa xarig adag oo ka bilowda 5 sano ilaa 25 sano waa marka loo geysto kufsi wadareed qof dumara oo koox abaabulan oo ka badan 2 ayaga laftoodu ay arintaas sameeyaan ayada lafteeda taas ay ciqaabteedu noqonaysaa waxa la eegaya duruufaha kaysku macnaha sharcigu eega marka way ka adagtay hadii tusaale ahaan qofka laftiisa loo geysto dhaawac jireed uu soo gaaro tusaale ahaan waxa dhacday inta badan inta qofka la kufsado ayaa ama midi baa lala dhacayaa ama dhibaato jirkeedii loo geysanayaa ama uu sababo kufsiga loo geystay in la dilana way dhacdaa lafteeda iyadoo la kufsaday inta badan dambiyada magaalooyinka ka dhaca xashadu ay sababaan ay soronayso qofkani ilaa heerka gaaraya macnaha qof aan markaa maskaxdiisu joogin daroogo waaweyn oo xashad iyo waxyaabaha isticmaalay bay noqonaysaa ama ay dhimasho noqoto qofkii ama jirkeeda la gaarsiiyo dhaawacaasi wuxuu keenayaa 2 nooc noqonaya mid waa mid jireed ku maskaxeed lafteeduna dib u jiraya qofkii dumarka moralkeega iyo mustaqbalkeega waa baaba'aya ayada lafteedu waa farqada saddexaad wuxuu oranayaa waxa lagu ciqaabi karaa xarig adag oo ah madaxaha ku furto ay lagu ciqaabi karaa life prison waxa loo yaqaan ayaa lagu ciqaabaya waayo qofkii dhibaato loo geystay jirkeedii waa loo galmooday maskaxiyan waa la dhaawacay mustaqbalkeedii baa la burburiyay sharcigu markaa inuu uga argudo waa waxyaabaha loogu talagalay xeerka dambiyada Itoobiya loo sameeyay dadka xumaan falayaasha dambiyada noocan oo kale sameeyay in lagu ciqaabo ay noqonaysaa marka dhinaca kufsigana saasay noqonaysaa markaan u soo noqdo arinta xashiishada xashiishadu horta waxyaabaha ugu badan ee imika halista inagu haya daayirteena xitaa daada iskuulka sare marka ay gaadhay iyo jaamacadaha dhibaato adag bay ku inta badan dadka la soo xiro
ee dambiyada noocana lagu soo qabto waxay u badan yihiin ardayda school age-ka dugsiga sare iyo jaamacadaha dhigata marka inaga lafteena taa lafteedu waxay keenaysaa environment schoolka laftiisa in dib loo ogo wasaaradda waxbarashada lafteedu school environment-gu waa noocay maadaama xashada iyo waxyaabahan isticmaalayeen dadka ardayda ah ee loogu talagalay dhaqanka iyo akhlaaqda suuban in la yimaadaan waxbarashadu wax ka bedesho talabaad jaamacadaha markay gaaraan laftooda way isticmaalaan daayirta jaamacadaha dhigato dadka la soo qabto iyaga laftooda qayb ka yihiin marka halkii qofku de waxbarashadii xooga saar lahaa mustaqbal fiican waalidkiisu sugay wax laga yaabaa inuu waxyaabo kale faraha kula jira taa lafteeduna dhibaato inagu haysaa arintan xashishada ugu badan ee la isticmaalay imika ay soo gashay magaalooyinkeena cannabis baa la yiraahdaa waxay ka baxdaa in si lagu ogaado daraasadu sameeyay xafiiska cadaaladdu cannabis baa la yiraahdaa waxayna ka baxdaa deegaanada deriska aynu nahay sida deegaanka Dhabuubka iyo Oromiya haramaayo area-da la yiraahdo Shashamane iyo Dhabuubka meelaha awaasa area-deeda ayay inaga soo gashaa inta badan xashishadan lafteedu markii la eegay xilima ayay deegaankeena ka bilaabantay muddo laga joogo 12 sano ayay kiisaskeedu ku soo bateen magaalooyinka isla markaana maxkamadaha in laga furo ay noqotay sida rikoodka dambiyada ee booliska aanu ku ogaanay marka daroogadaasi dadka waa waxan oo dhan waxa sabab u ah waa hooyada xumaanta ama dambiyada dhacay ee magaalooyinka ka dhaca hooyadeed weeyaan marka qofku hadii tusaale ahaan uu beero ama daroogada uu dhalan rogo ama uu warshadeeyo maanduuriyaha waalida keena macnaha ama uu dhoofiyo ama uu ka garacsado ama uu iibsado ama soo iibiyo ama uu ka kireeyo xitaa guri ama dhul bahasha lagu qaybiyo garanaysaa qodobku leeyahay 520 ee xeerka dambiyada Itoobiya farqadiisa koobaad waxa lagu ciqaabayaa xarig adag oo aan ka yarayn 5 sano iyo ganaax dhan 100,000 oo bir farqada koobaad qodobka ayaa saale marka xubinka debinka macnaha dambiga galay xubin ka tirsan uu yahay macnaha tusaale ahaan urur ama koox laftiisa xubinka dambika galay markuu shakhsi yahay iyo markuu xubin urur ama group ama koox ka tirsan yahay ciqaabtu way kala badanaysaa wuxuu noqonayaa xarig adag oo ka bilowda 10 sano iyo 100,000 oo bir marka way la kala adkeeyay qofka shakhsiga dambigan kala iyo qofka markuu abaabulan yahay tusaale ahaan أو كوح كتير أور وحياة عن كشقية أو أما سيقايبية أما استعمال أو ذات كردقن كبدليو كوفا فيني بولشدين بعشان معناها دروغنا اللي بعتذر كوا أمني جيا نبض قبك بولشدة حير كوسي أتكينيات صالحان الظروفها كيس كمركزته ليجي يسدان هرب أوشيء جاي مركا حرق واحد سوحك بلامي دونا طبعا سنة إلا بقول كنا بيرو جناحه مركا أنت بدن دروغة وحياة إنه صوبتي dhibaato fara badan ku hayay magaalooyinkeena qaabkee lagu hortagi karaa hadaba faldambiyeedina faraha badan ee aad sheegtay ka dhaca magaalooyinka waxa looga hortagi karaa koow laba arrimood baa looga hortagi karaa marka koobaad waa in wacyigelin ballaaran la siiyo bulshada oo ku saabsan khatarta iyo dhibaatooyinka ay dambiyadani ku hayaan bulshadeena isla markaana qodobada xakameynaya ee sharciga ama xeerka dambiyada Itoobiya uu dhigayo la fahansiiyo bulshada ciqaabta ka dhalanaysa marka dhibaatooyinka dambiyada noocan ah qofka uu ku dhaco oo institutionada ay khusayso sida booliska xafiiska cadaaladda hay'adaha kale nabadgelyada ee la shaqeeya wacyigelin fala baraaran in la sameeyo marka labaad dambi ka hortag wacyigelinta lafteeda dambi ka hortag bay noqonaysaa in la ogaado meelaha lagu iibiyo isla markaana dadka waxaan si faafinaya lafteeda inta la soo qabto sharciga loo mariyo lafteedu si ay tusaale ugu noqoto kuwa kale waayo qofku hadii uu arko qofkii hadda ka hor dhibaatadan ku jiray ama ka ganacsanaya ama isticmaalaya faafinay marka sharciga la mariyo wax laga yaabaa kii kale bari ku dhiireys laha inuu macnaha iska daayo oo uu arko isha cali macnaha ninkii digniin ugu filan bay Soomaalidu tiraahdaa arinta labaad ee laga hortagi karayaa waxa weyn waalidku inta badan inay ka warhayaan ubadkooda inay ka warhayaan halkay ku maqan yihiin goobaha waxbarashada ma ku sugan yihiin xaaladoodu waa noocee bulshada lafteedu qayb ka qaatay dambiyada dhacay inay yareynteeda waayo hadduu qoysku wanaagsanaado oo ubadku oo meel fiican ka soo baxo bulshadu dhan baa wanaagsanaasay ay ka dhigantahay marka waalidiintu gaar ahaan aabayaashu inay ka warhayaan caruurtooda isla markaana ay ogaadaan goobaha ay ku sugan yihiin
oo marka la soo qabtay hay'adaha sharciga gacanta ay ku qabtaan dembigii isagoo faraha kula jira oo la qabto aan ergo loo iman oo la oran inanka iyagu masaajidku ku jiray in wanaagsan baa goobaha waxbarasho ku maqan yahay laakiin koor uu ogaado qofkani muxuu ku sugan yahay taasa macnaha iyada lafteedu muhiima kulli arinta kale xashiishada ka qayb qaadata waa dadkan Highland risk ka yimaada macnaha deegaanada aynu jaarka nahay sida dhabuubka iyo Oromiya inta badan dhabuubka u badan meeradaha lagu iibiyana waxay u badan yihiin meeradaha dadka dukaamada yaryar ee dhabuubka la yiraahdo iyo isticmaalka dadka bajaajlayaasha la yiraahdo magafaha loo yaqaano kuwaasoo waalidku qofku wax laga yaabo intuu la wantariibay in bajaaj loo iibiyo in laga war hayo lafteeda muxuu kaga shaqeeyaa xilli muu soo hayda saacadihii uu shaqeynayo kaliya ma ku maqayay waxyaabo kale waan ognahay kulay daroogada qofka isticmaalay muuqaalkiisa xitaa bedelaysaa hab dhaqankiisa iyo anshaxiisa iyo labiskiisa ka muuqata inay markaa waalidku ka war hayaan hadii ay fahmi waayeen hay'adaha sharciga hadii uu ilmihii waalid caaq noqdo lafteedu dhibaato ku hayo wax kale soo weynayo ayaga laftoodu ay sharciga geeyaan bay noqonaysaa marka siyaabahaas laga hortagi karaa kulli xafiiska cadaaladda iyo booliska iyo hay'adahan cadaaladda laftoodu markastoo shirka toddobaadle hay'adaha cadaaladda la isku yimaado ama shirka security council ku madaxweynuhu jeer gareeyba waa dambiyada seriously loo qaato zero tolerance weyn dulqaad looma dulqaadan karo haduu yahay China group burcadnimada isticmaalka xashiishada waxa loo yaqaan tahriibka oo khatar badan isaguna ku hayo inkastoo barnaamij gaar ah ka duubi doono hadii ilaahay dhalinyaradeen intaasi waxay ka mid yihiin dambiyada aan loo dulqaadan karin isla markaana focuska macnaha la saaray specialka si gaar ah macnaha xooga u saarnaayay ayay ka mid yihiin in loo dul qaadan karin taamicnaheedu waxay ku tusaysaa dadaalkii loo baahnaa in ay ku jiraan hay'adaha cadaaladdu xafiiska cadaaladdu inuu hormuud ugu yahay arrimaha noocan oo kala waayo hadii la adkeyn waayo waxay noqonaysaa inay sii bataan markaas si loo xakameeyo lafteeda waa in la adkeeyo ciqaabteedina la mariyo qofka dhibaatooyinka noocan ku sifooba ama dambiyada noocan aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Maxamed Arbe oo kamid ah sharci yaqaanada xafiiska cadaaladda dowladdeegaanka Soomaalida oo wareysi naga siinayay dambiyada xiliyadii u dambeysay ku soo badanayay magaalooyinka dowladdeegaanka Soomaalida waa soo jeedintii Maxamed Cabdi Cali dhanka kaamirada si wada jir waa Abshir iyo Golchano habayntu waa nimcankaas dhanka tafatirkuna isku dubridkii Xasan Cige dhamaantayo wakaalada warbaahinta dowladdeegaanka Soomaalida isku duubni idin leh sidaas iyo amaana Allah